ajandaha shirka ayaa ahaa istiraatiijiyadda dhiirigelinta maalgashiga qaranka iyo mabaadi'da ilaalinta xuquuqda maalgashadaha shisheeye oo agaasinkeeda waday xafiiska horumarinta iyo maalgashiga shisheeye ee wasaaradda qorsheynta ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday wasaaradaha dowladda, wakiilo ka socday maamul goboleedyada dalka ka jira. qaybaha maalgashiga ee wasaaradda xoogga saarta ayaa waxaa ka mid ahaa xoolaha, beeraha iyo waraabka, kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, maaliyadda iyo adeegyada bangiyada, tamarta iyo biyaha, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, kaabayaasha dhaqaalaha, dalxiiska iyo duurjoogta. wakiilada shir ka qayb galaya si fiican loo foguray qodobada iyo fursadaha maalgashiga ee dalka ka bannaan iyo waliba ilaalinta xuquuqda maalgashadaha. Cabdiqafaar Axmed Shiro oo ah la taliye arrimaha siyaasadda iyo xiriirka warfaafinta ee xafiiska horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga ayaa sharaxaad ka bixinaya qorshahan iyo intuu soo socday. waxa uu diyaarinayay istiraatiijiyadda maalgashiga qaranka iyo sidoo kale mabaadi'da dhowrista xuquuqda maalgashatada shisheeye ee wadankan la doonayay inay timaado. marka sida aad sheegtayba bishii la soo dhaafay ee July ama Luulyo ayaa waxaan bilownay wadahadallo ku aadan arrinkaas. kulankii ugu horeeyay 24kii bishii Luulyo waxaan la kulannay wasaaradaha dawladda federaalka oo ay ku jiraan hay'adaha dawladda federaalka haday noqon lahayd xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra'iisul wasaaraha, baarlamaanka, xeerlaalinta qaranka, gudoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan hay'adaha kale ee dawladda federaalka. waxaan kala tashanay markaasi mudnaanta fursadaha maalgashi ee wadankan uu u baahan yahay. intaasi kadib wakiilada shir ka qayb gala ayaa dood adag waxay ka yeesheen ilaalinta mabaadi'da dhowrista xuquuqda maalgashadaha oo ka koobnaa ilaa 7 qodob, waxaana si buuxda ay isku ogolaadeen in loo gudbiyo golaha wasiirada oo ka doodi doona inta aan la ansixin ka hor. waxaan diyaarinaynaa istiraatiijiyadda oo 2 luqadood ku qoran English iyo Soomaali. turjumaadii rasmiga ahayd bay maraysaa. marka turjumaadda rasmiga ay martay ka bacdina wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha waxa loo baageyn doona oo waxa loo table gareyn doona golaha wasiirada ayaa ka doodi doona istiraatiijiyadda maalgashiga qaranka. Soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa dib u dhac ragaadiyay dhaqaalaha iyo horumarka dalka, balse hadda waa dal u jihaysanaya dhanka horumarka iyo nabadda, waxaana uu muhiimad gaar ah siinaysaa wasaaradda qorsheynta in Soomaaliya ay ka dhig goob ay ku soo hirtaan maalgashadayaasha adduunka. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.